السلام عليكم saaxiibadeyda YouTube waa idin salaamay meel walba adduunka joogtiin waxaan bilaabeynaa xalqooyin la yiraahdo Egypt ama dalka Masar iyo wixii aan ku soo arkay xalqada ugu horeyso waxaan la kulmayaa maanta hooyaday hooyaday labaad oo ah ayeeyaday hooyadeed oo iigu dambeysay in ka badan 20 sanadood markii iigu dambeysay caqli ma lahayn aada u yaraa macquul in dhabta saarnaaba marka maanta la kulmeynaa ina keena waxaan isticmaalaynaa application-ka la yiraahdo Uber oo ah in gaari la qaato sida caadiga waa ogeydin Soomaaliya hadda koor Muqdisho laga bilaabay gaariga dhaweey oo kale marka waxaan ku qoraynaa meesha aan rabno oo maamada meesha degan tahay waaye then waa wacayna maab ahaan noo tusaaya qariidada meeqay noo jirta meeqa loo soconaya iyo lacagta ku raacayno waa kana keena marka
muuqaalkan sababta aan u duubay waxay tahay baraarujin. sidaa ognahay dad badan ayaa waxaa ka maqan xigtadoodii, walaalahood, aabbayaashood, hooyayaashood, eheladoodii, awowayaal iyo ayeeyaal intaba, iyagoo aanan dhalanin ama markay dhasheen kadib ayay iswaayeen ama ay kala fogaadeen, waxayna isla yihiin ilaa ay ka qaangaaraan, ay ka ilmo dhalaan, ay ka odayoogaan. hadda la joogo waxaa jira technology, alxamdulillah, video call ku helaysaa qofka aad doontid, balse ogsoonow sida ugu fiican waxay tahay 5 sano kadib inaad ku laabatid reerkii sidee la yahay, maxaa isbedelay, maxaa soo kordhay, si aad ugu warqabtid arrinta maxaa isbedelay iyo maxaa socdo. ogsoonow mar walba waxaa jiro xigto aad kuu jecel. booqashadan ee aan la kulmay maanta hooyaday waxay ahayd mid ka mid ah sababihii ugu weynaa ee aan u imaaday dalka Masar, anoo heli karo markaas dalal fara badan ee aan waxbarasho u aadi karo. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada. السلام عليكم.